مدن مدحوينه marka ugu horeysa waxaad ku soo dhawaataa telefishinka qaranka Soomaaliland waxaan doonayaa ku weydiiyo ujeedada uu darnaa safarkii dheeraa ee maanta oo wareysigan kula yeelano uu galay maalintiisii tobnaad muxuu darnaa madaxweyne safarkaas wuxuu darnaa inaanu dalka soo maro inaanu xogaal noqono dalkayga dadkayga u qabo ayuu darnaa aad iyo aad baa muxuu ahay anaguna uga muxuu ahay farxadna u ahayd inaanu kusoo wareegno qaybo badan oo dalka ka mid ah la soo korno dadkayaga waxay qabaan ayaan ogaano mashaariic ka soo furo la soo tashano dareenkooda ogaano aad bay wax weyn oo muhiim ay noogu tahay maamulka aan madaxda ka ahay waayo dadkayaga ummaddiya dawladdiya dadku inay isku xiriirsanaadaan xogaan isu noqdaan waxay wadaan laga wada socdaa madaxweyne aad baad mahadsantay su-aashada labaad waxay daaran tahay mucaaradku inta badan waxa ay safarkaasi ku tilmaameen inuu ahaa dalxiis arrinka iyaga maxaad ka leedahay safar xarago oo bilaa macno ah oo la iska soo wareegayo muu ahayn wuxuu ahaa safar qiimo weyn ugu fadhiya dawladda iyo dadkaba ugu fadhiya ummaddu ay dareenkooda noo muujinayeen baahiyahooda noo sheegayeen waxaanu ka qaban karin aanu ka qabanayno wixii kalena aanu soo qaadanay marka ma ahayna waxaa safar loo baahnaa baahi weyn loo qabay buu ahaa shacab iyo dawladdu u baanayeen buu ahaa marka aad baan ugu faraxsanay inaan soo maray waajibna way nooga dhixina saarna waa mudane madaxweyne aad baad mahadsantay safarkii hore ee la magacbacay hilaaci xeebaha waxaa nasiib u yeeshay anagu inaan ku raaco saftiga ay safarkaasi oon kula socday kana waxaa nasiib u yeeshay inaan ka mid noqday waftigaaga markaan eego labadaas safarba waqtiga la kacayay iyo hadday noqon lahayd 6 ilaa habeenkii ilaa 1 waa la soconayay anigoo ka mida dhallinyaradii nasiibkooda inaan ku raaco safarka haddana inta degmana cadanay aniga adigoo madaxweyne waftigaa hogaaminayna marka lagaa madaxweynada gaariga saaran 1dii la kacaama 2dii runtii aad baan la yaabay jiray markaa safarkaagaasi madaxweyne waxaan jeclaan lahaa bal dadka qaarna waxay isweydiiyaan madaxweynuhu inta badan hadduusa soo sharaxo madaxweynuhu wadaa maxaad arrinkaa ka leedahay dawladdu de wax xuma ah daadayda kulliba kuna weynaan mayso kuna yeelan mayso intaan aan baanahay laakiin inaan awood leeyahay inaan dhaqaaqi karayo inaan socon karayo inaan fikri karayo inaan shaqaynayo dee way iga muuqataa marka alxamdulillahi rabbil caalamiin waan mahadinayaa waan caafimaad qabaa waan wanaagsanahay ilaahay mahadii baan joogaa madaxweyne xukuumaddaada hogaamiso ee garwadooyinka u tahay waxay dhammaystirtay guud ahaanba wixii ku xidhnaa doorashooyinka madaxtinimada ee soo socda ee la filaya inay dalka ka qabsoomaan hadday noqon lahayd diiwaangelintii hadday noqon lahayd lacagtii ku baxay lahayd doorashada xukuumaddaada way dhammaystirtay mucaaradkuna inta badan waxay dhahaan doorashadu waqtigeeda qaban mayso arrinkaa iyada bal ka waran doorashada waqtigeeda bay ku dhacaysaa insha allahu tacaala annagoo xaggayaga waxaa sidaa sheegtay waanu ka dhammaystirnay waqtiga doorashada loogu talagalay way dhacaysaa waanu ku xisaabtamaynaa waanu fulinaynaa dimuqraadiyadda dalkana waanu ilaalinaynaa xaggayaga ka liici mayso inaanu ka toosino hagaajino mooyaane nowradeeya waajibka xilka wasaare waanu ka soo baxaynaa si buuxdaan u gudanaa insha allahu tacaala madaxweyne hore waxaad u shaacisay inaad u sharaxan tahay jagada madaxtinimo ee doorashada ee soo socota arrinka mucaaradkuna inta badan waxay dhaheen madaxweynuhu doorashada uma taagna ama isuma sharaxayo horena waad u bayaan mise waxaad tiri waanu sharaxanahay musharaxa xisbiga talada dalka ayay kulmiye u taagan ee dhinaca doorashada arrinka mucaaradku inta badan way dhalilaanoo su-aalo kala duwan bay iska weydiiyaan maxaad ka leedahay arrinkaa waxay ka baqayaan inuu istaago waana istaagaya waana taagana insha allahu tacaala waana caafimaad qaba waana wanaagsanahay marka insha allahu tacaala dee waa inoo garoonka ayaad leedahay okay aad u mahadsantahay